maxaa jiradee waan soo toosnay annagu waan soo toosnaye bal geedkaad gaadhaan midho ka goosta kuwii la xajin lahaa kuwii googarada dumarka ka laalaaday bisha barakaysan ee xataa cibaadadii ummaddu ka cibaadaysan weyday ee suxuur hadday tahay aftur hadday tahay inta u soo galaan nag tahayow soo toos halkan war yaalla warba halkan ini yaalle imaada safiih horta intaanan gelin mid baan u sheegayaa reer Jabuuti inta imika ku nool baan sheegayaa waddanka gudihiisa in caafimaad qabta oo qurbahan iska joogto way jirta oo midnimadooda ay deeqdo inkitiinadu ay deeqdo alwaxdadu ay deeqdo in yara xanuunsanayso xanuun min allaahiya uu ku dhacay mooji alif wax male iyo alif wax buu leeyahay laakiin waxayna odhanayaa ummadda reer Jabuutiyo fidnada indihiina u fura fidnadu way hurudaa meesha tanna canfar iyo ciise iyo carab iyo cusbayaan whatever you name it ilaah walaal buu ka dhigay dad islaam uu ka dhigay meel ku wada nool ninka doonaya inuu kala didiyo adiga ha kugu koobnaato dadka kale ha la soo dhexgelin Jabuuti reer Jabuuti baale waa hadduu hadalku ku gala dee hadduuna ku gelinna dee dawaad u baahan tahay dawada halka kuugu dhowna seekuurka kuugu dhowina waad fadhidaa dhul la iska daweeyo laakiin ummad walaalo ah inaad dhexdooda aad ka shidid taasi habeenkii xalay oo tegay bay kugu tahay whatever ka doontid noqo habeenkii xalay ee tegay bay kugu tahay dad walaala oo meel wada degan inaad qori iskugu dhiibtid inaad tiraadid kan iyo kani ilaahay baa wada dejiyey adigu maad wada dejin abidayna wada deganaayeen awowbay deganaayeen ay isla noolaayeen maanta maxaa bedilay maanta maxaa ka degadidsan maanta waa maxay waxaan ka dhalan rogantii hore ma ii sheegi kartaan waa maxay maanta waxaan qaldanay imidee lala noolaan lahay waa la isla noolaan jiray waana la isla noolaanaya haddaad jeceshahay haddaad neceb tahayba aday ku taala laakiin ummadda kala fadhiiso fidnada iyo problemka adiga ku haysta ee kuu gaarka ah waayo problem adiga ku haysto kuu gaar ah iyaad rabtaa ummad dhan inaad aafaysid ood gaarsiisid taana kuu suuro geli mayso kaa yeeli mayno problemkaaga adigu maskaxdaada ku koobnaato simple kugu koobnaato Jabuuti reer Jabuuti baa leh fidnada jooji kuwan labadan imika soo baxaan sheegayaa eele maxay baa kan iyo kan ah no bishii Rabadaan baad fooda kicinayseen anigu ilaa halkaas yaan buuxaa laakiin dib baan kuu dhiganay adi laakiin ummadda ka fadhiiso waana isgaranaysaa baan u malaynaya ummadda ka fadhiiso canfar iyo ciise waa walaalo welcome back Dumashi canfar iyo ciise waa walaalo
walaalayna ahaanayeen walaalayna ahaan doonaan adigu ciil u dhimo umada ka dhex baxo fadhiiso meel edab darra ku hayse edab darra inteeda leeg baa ku haysa okay wallahi billah edab darra inteeda leeg baa ku haysa umadii oo dhan baa taa ka fadhiiso umada umada reer Djibouti indiina kala fura waatana dhaanta iyaan kolba shamiis nilii soo xidhan inoo niloodhani maanta waxaan sitaa shay nin shamiis caddaanaan sitaa beritoole shamiis buleeyaan xidhani no reer Djibouti waxaa way ka koreen aqligaas waa la dhaafay qadaadiicdaad ku uruursanaysid iyo maacoraadiskaad ku uruursanaysid la fadhiisa dhakhtaradaada ku aad problem in ku filan way ku haysataa baan u malayni problem iyo dhibaato iyo walbahaar iyo xanuuno in kugu filan waad haysataa I don't know reasonka aad ugu foofaysid dadkan ilaahay baa dad walaalaa ka wada dhigay markaa dib ka yara baxdo ka yara bax taas waa taa idinkuna reer Djibouti oo foojignaada midnimadiina iyo inkitiinadiina iyaan iliga hor leexini iyaan iliga duminin nin meeli bugto iyo ku soo xoqani reer Djibouti baan hoo kanaan u doodaya war buux iyo xumed waa walaalo buux iyo xumed waa walaalo wiil uma dhaxeeyo buux iyo xumed waa walaalo like it or not buuxna waa buux xumedna waa xumed waa laba walaalo oo ilaahay meel wada dhigay fahantu ilaahay baa meel wada dhigay wixii galbeed yaala galbeed Dr. Abiy dowladda Ethiopia ka mas'uul ah maahin Djibouti halkaas ay nagu koobnaato wabillahi tawfiiq inta kalena waxaan leeyahay reer Djibouti indihiina kala fura